Ma ogtahay in dalka Colombia uu yahay dalka ugu weyn ee soo saara daroogada kokaayinta adduunka? Dalka Colombia oo kaliya ayaa lagu qiyaasay inuu soo saaray 2664 tan oo kokaayin ah sanadkii 2023, taasoo ka dhigan ku dhawaad 27% dhammaan kokaayinta dunida laga helo. Macmiilka ugu weyn waa Mareykanka, halkaas oo 84% kokaayinta lagu isticmaalo. Mareykanka ayaa si toos ah uga timaada Colombia, waana xaalad aan isbedelin muddo 25 sano oo xidhiidh ah. Kooxaha tahriibya daroogadu waxay kokaayinta ku gudbiyaan wadooyin qarsoon, iyagoo ka soo dira Colombia kuna sii marsiya bartamaha Amerika iyo Mexico dhinaca badda, kadibna uga sii gudbiya Mareykanka iyagoo adeegsanaya shabakado dhulka ah, marino badeed iyo doonyo yaryar oo si hoose biyaha ugu socda oo loogu talagalay tahriibinta daroogada. Waana isla wadankii uu ka soo baxay boqorkii ugu cabsida badnaa ee daroogada adduunka, Pablo Escobar. 80-maadkii kooxda daroogada ee Medellin Cartel ayaa noqotay mid aad u awood badan, ilaa ay hay'adda DEA-da, kooxaha sirdoonka Mareykanka iyo dowladda Colombia ay iska kaashadeen sidii loo soo afjari lahaa xilligii ugu awoodda badnaa. Kooxdaas ayaa la sheegay inay sameyn jirtay ilaa $100 milyan maalintii, isla markaana gacanta ku haysay ku dhawaad 80% kokaayinta soo gasha Mareykanka. laakiin maxaa Colombia ka dhigay meel sidan ugu habboon? Sababtu waa nature-ka dalka laftiisa, kaymo roobaad cufan, buuro adag oo qarsoon, iyo cimilo kulul oo geedka kookuhu si fiican ugu baxo, si ka wanaagsan meelo badan oo kale oo dunida ah. Deegaanada fogfog ayaa ciidamada dawladdu ay ku adag tahay inay gaadhaan, halkaas ayay maafiyada daroogadu si buuxda uga talisaa.